halkani waa Horseed Funny Media fadlan subscribe saar janaalka Horseed Funny Media oo riix gambaleelka yar si ay ku soo gaaraan muuqaaladii ugu dambeeyay Ramadaan Kariim ayaanu idin leenahay meel kastoo aad joogtaan daawadayaal waxaan idin soo gudbinaynaa hadaba waa kuwee aktarada ama jilayaasha iyagu jila dhanka musalsalaadka ee maanta sooman ama oogaya bisha barakeysan ee Ramadaan waxaan soo qaadan doonaa qaar kamida kuwaas oo iyagu soomay maanta aktarada Hiba Nawaab waxa ay sheegtay in shaqada muhiim ay u tahay balse shaqada waxa ka sii muhiimsan ayay tiri in aad soonto bisha barakeysan ee Ramadaan inkastoo aan shaqeynayo haddana waxaan ilaalin doonaa soonka oo waan tukan doonaa si aan ugu xidhmo Allah subhanahu wa ta'ala waxay aktarada Hiba Nawaab ay sheegtay in uu kuleel aad u daran uu jiro sidaas oo ay tahayna ay soonka markaas ilaalin doonto shaqadeedana markaa muhiim ay u tahay dhinaca kale waxa jira aktara kale oo iyaguna markaas sidaas oo kale uga hadlay sida Zayn Imam waxa uu sheegay in maalmaha soonka ay tahay maalmo aan la dhaafi karin waxaana uu sheegay in uu ilaalin doono bisha barakeysan ee Ramadaan haddii aan awoodi waayo oo aan xanuun markaasi oo iiga tagto waxa uu sheegay in aan quudin doono dad masaakiin ah balse waa in aan ilaaliyaa Ramadaanta xilliga aan anigu markaasi duubayo film ama musalsal Zayn Imam sidoo kale waxa uu ku booriyay dhammaan dadka kale ee muslimiinta in ay ilaaliyaan bisha barakeysan ee Ramadaan waxa isna markaa ka hadlay Waajid Khan oo haatan isagu ka qayb galaya show caan ah oo ka baxaya mid kamid ah TV-yada wadanka Hindiya Ramadaan waa bisha markaasi dulqaadka tan iyo caruurnimadeedii laga soo bilaabo waxaan markaasi oogaya ama aan ilaalinaya bisha barakeysan ee Ramadaan waxaan kacayay subax goor hore si aan markaasi u suxuurto waxaan isku dayayaa in aan markaasi maalinna aysan idhaafin bisha barakeysan ee Ramadaan ayuu sheegay Waajid Khan Adaa Khan oo isna kamid ah dadka caanka ah ee dhanka aflaamta aadka uga soo dhex muuqday waxa uu ka hadlay bisha barakeysan ee Ramadaan iyo dareenkiisa waxa uu sheegay in aysan dhaafi doonin hal maalin sababtoo ah buu yiri waxaan ilaalin jiray tan iyo 9 sano markii aan jiray ayaan soomi jiray bisha barakeysan ee Ramadaan ayuu sheegay Adaa Khan waxaan soomayay maalmaha anigu waliba aan shaqeynayay hase ahaatee maalmahan waxaa jira kuleel aad u daran waxaana aad u adkaan doonta in aan in badan ka hor hadasho kaamarada taasi oo keenaysa in dhidid badan uu ka baxo waxaad u baahanaysaa biyo badan haddii ay tan oo kale igu dhacdo soonka waa joojinayaa balse waxaan quudin doonaa buuri dad masaakiin ah Ayub Khan oo kamid ah jilayaasha dhanka musalsalaadka muddo badan ku soo jiray waxa uu sheegay in uu la qabsaday soonka sababtoo ah xilliyada uu shaqeynaya xitaa waa aan soomi jiray buuri sidaas darteed aniga oo haatan jilaya musalsal uma joojin doono oo bisha barakeysan hal maalin igama dhaafi doonto ayuu leeyahay jilaagaasi Ayub Khan